آياتنا إنه هو السميع البصير. ولريال سيدا مغليسين خطبتنا maanta waxay ka hadlaysay mucjizaadkii nabigeena soo maray sallallahu wasallam wa baraka calayhi. mucjizooyinkii ugu waaweynaa mucjizo ka mid ah mucjizooyinkii soo maray nabigeena sallallahu calayhi wasallam, mucjizadaas oo ah mucjizada la yidhaaho mucjizaة الإsrاء والmicraaj. dheelmintii nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh iyo micraajkii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ilaahay uu ku karaameeyey safarkii barakaysnaa oo ka mid ahaa khasaa'is nebiy llaahi moxamed salى اllahu calayhi wasalam. mucjizaة الإsrاء والmicraaj waxay ka mid tahay mucjizooyinka ilaahay uu ku gaar yeelay kuna karaameeyey nabigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh. maxaa yeelay ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nebiga salى اllahu calayhi wasalam ma soo marin mucjizadan oo kale. mucjizadan dheelminta iyo korsiinta nebiga salى اllahu calayhi wasalam la korsiiyey toddobada samo iyo meel ka sii sarraysa iyo sidrati lmuntaha iyo cajaa'ib fara badan ee ifkan uu ku soo arkay habeenkii la dheelmiyey nebiga salى اllahu calayhi wasalam. mucjizadan mucjizaة اlisraa min bidaayatiha ilaa nihaayatiha, bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waa umuur khawaariq ah, waxyaalaha bini aadamku uu yaqaano xuduuddeeda wax ka baxsan. caqliga bini aadamka iyo habka dunidan ay u dhaqanto waa wax ka weyn oo mucjizo ahoo ka baxsan. liannahu waxaa weeye nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu isku soo maray habeenkaa la dheelmiyey salى اllahu calayhi wasalam laba safar, rixla ardiya wa rixla samaawiya. safar dhulka uu ku maray nabiga salى اllahu calayhi wasalam oo ka biloawmayey masjidkan maka ku yaalla ee la yidhaaho masjid ulxaraam, kuna dhammaanayey masjidkan dhulkan reer falastiin ku yaalla ee la yidhaaho almasjid ulaqsa. safarkaas dhulka ah intaa waxaa la yidhaha alisraa, intaas waxaa la yidhaha dheelmin, laga bilaabo masjidka maka ku yaalla ilaa masjidkan dhulkan shaam, khusuusan dhulkan falastiin ku yaalla ee masjid ulaqsa. labada masjid inta u dhexaysa waxaa la yidhaha alisraa, dheelmin. laga bilaabo masjidkan la yidhaaho almasjid ulaqsa ilaa toddobada samo waa safar waxaa la yidhaha alrixla samaawiya, waa safar dhinaca samada uu nabigu salى اllahu calayhi wasalam loo qaaday oo samada loo korsiiyey ilaa samadan toddobada samo uu isku maray nebigu salى اllahu calayhi wasalam iyo meel ka sii sarraysa oo ilaahay uuna og yahay. intaas wuxuu isku marayey dhulka iyo cirka hal habeen oo kale ah, bal wax ka yar hal saac ayuu intaa isku soo maray nebigu salى اllahu calayhi wasalam. marka waa wax ka baxsan ifkan waxyaalaha dhaqanka lagu yaqaan ama xuduudda caqliga bini aadamka. sidaas awgeed ayaa dad badan ee gaalo ah oo joogay xilligii nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh way beeniyeen mucjizada alisraa wاlmicraaj. laakiin alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mucjizadan alisraa ilaahay inoogu sheegay. bal xataa suura mutakaamila ayaa waxaa loogu magac daray mucjizadan mucjizaة اlisraa. waa suuraddan la yidhaaho suuraة اlisraa, suuraddii dheelminta. suuraddaas suuraة اlisraa waxaa loogu magac daray mucjizadii nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi mucjizaة اlisraa wاlmicraaj. lidaalika qofkii beeniya oo isku daya mucjizadan inuu beeniyo wuxuu ka baxayaa xuduudda islaamka, wuxuuna gelayaa xerada gaaladuu gelahay. liannahu qur'aankiiyaa sheegay, qur-aankuna waa hadalkii ilaahay.
وحي إلهي سبحانه وتعالى وشيغه ويراه ربي سبحانه وتعالى وحاسي ويدعين قفكيرا وابين مدعين وقالوا هذا حدود إسلامك وكبحي إذن مروا البابا نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إله كرامي معجزة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء والمعراج وحي كتمد سنة عام الحزن كبعد أي معجزة أيد عليه سنة علماء السير أي كما قعابين سنة مروقة والنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ولا كل ما يظروف أدق سوى كجرة أيال النبي صلى الله عليه وسلم سن النبي صلى الله عليه وسلم لوغا صبر سيو ظروفها أدق أو مركز كوجهيي قال دي الدين وكل حفافينيي عدادسك وكلا كل ميي هي عبرنت وكلا كل ميي هي دباتده وكلا كل ميي ayaa la doonayay in nabiga laga soo mayro laga soo dhaqo laga soo sabar siiyo la tuso in ilaahay uu furay albaabo fara badan ee karaamaad iyo khawaariq iyo mucjizooyin oo aan la soo koobi karin sidaas awgeed mucjizadan waxay dhacday markii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayh magaalada Maka uu diinta ku faafinayay muddo dheer diinta nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa 13 sano ayuu joogo diinta uu ku faafinayay magaalada Maka al-Mukarrama nabiga sallallahu alayhi wasallam markii magaaladii Maka ay diintii ka qaadan weysay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu haddana ku fiiriyay dacwadii iyo diintii uu fidinayay dhulkan Daa'if oo Maka xiga dhulkaas uu aaday nabiga sallallahu alayhi wasallam niman waxa deganaan jiray dhulkan Daa'if la yiraahdo Bani Thaqif nimanka heer Bani Thaqif ahaa oo meesha deganaa dadkii odayaashii meesha ka talinayay ayuu u bandhigay ulajeedada uu magaalada u soo galay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri magaaladiina waxaan u soo galay inaan diinta ka faafiyo ayaguna way diideen odayaashii way diideen wayna inkireen nabigu inuu nabi yahay oo rasuul uu yahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka codsaday nabigu sallallahu alayhi wasallam in arrinkiisa aysan faafinin oo si nabadgeliya magaalada uu isaga baxo maadaama ay u diideen magaaladii inuu diinta ka faafiyo wuxuu yiri wax dhibaato ah ii geysanina waa isaga bixi magaalada taana way diideen oo waxay ku kiciyeen bulshadii iyo haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii oo dhan ay ku kiciyeen oo waxay yiraahdeen nabigii magaalada Maka yaani joogi jiray ayaa wadankeena soo galay marka sida awgeed dhibaato gaarsiiya dadkii marka qof walba waxay gacantiisa qaban karto dhagax iyo ul iyo wax walba ayaa lagu huwiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhulkii Daa'if sidaas loogu dhagax tuuray nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa dhiigiisii sharafta badnaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu daatay oo dhibaatooyinkaas uu ka soo maray nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Daa'if uu aaday nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo dhiigiisu daadanayo ayuu geed hoos fariistay markaasuu ducaystay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وحور النبي صلى الله عليه وسلم إله وحنكوش يغن ضعيفت النمد إذا إيا تبرت إذا أوليدته إيا ضدك سيدا إيهانيستين أو إيدوليستين أيام كوش يغن laakiin haddii aadan adigu ii caraysnayn oo aadan ii caraysnayn rabbiyo waxa igu dhacayo dhibaato ma lahan nabigu sallallahu alayhi wasallam wax walba waxa ka dhib badan caradaada ayaa iga daran haddii adiguba raalli aad iga tahay waxa maaha waxa dunidan igu soo gaaray ducadaas uu akhriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasa ilaahi subhanahu wa ta'ala malaa'iktiisa kamida ayaa ilaahi u soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam malagaasa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri waxa aad doonayso idirso haddaad doonayso qoladan in la halaago buurahan waaweyn ayaan soo fujinoo aan ku halaagi qoladan sidan kuu gashay oo dhiiggaagii daadisay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kelimadiisii caanka ahayd oo mashhuurka ahayd wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam inni la arju an yukhrij Allahu min aslaabihim man yuwahhidu Allah
waxbaha halaagin ilaahay waxaan ka rajayn dhabarradooda in ilaahay ka soo bixiyo carruur diinta faafisa oo islaamka qaadata inay dhalaan oo dhabarradooda ilaahay uu ka soo saaro ayaan ilaahay ka rajayn buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam dee akhlaaqdaas iyo dulqaadka nabiga sala allahu calayhi wasalam cid keeni karta ama gaari karta ama isku dayi kartaahi ma jirto leannahu qofku dhagax tuuray oo ku dilay oo dhiiggaagii daadiyey oo adiguna isaga iska dhaafay carruurtiisa u dhali doono aad u ducaynayso carruurtuu dhali doono aad u ducaynayso isaga iska dhaaf yaa heli kara akhlaaqdaasi qalbigaa nadiifka ah qalbigaa nadiifka ah oo qishi aan lahayn oo xiqdi aan lahayn oo xaasidnimo aan lahayn oo aarsi aan lahayn oo wax cudur aan lahayn oo nadiifka ah oo nuurka ilaahay mayo wax kaleoo laga buuxiye aysan jirinin quluubtaasuu nabigu diinta ku soo faafiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabigeenu sala allahu calayhi wasalam dhibaatadaas markuu la kulmay markaa ka bacdi ayaa waxaa yimid mucjisadan dheelminta ah al-israa waalmicraaj isagoo murugadaa la kulmay nabigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo la doonayo nabiga sala allahu calayhi wasalam in laga sabar siiyo dhibaatada nabiga soo gaartay sala allahu calayhi wasalam lana tuso dadkii dhulkan joogay gaalada ah ee waxmagaratada ahaa haddii sidan ay ula dhaqmeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa iyo ambiyadiisa iyo rusushiisa ay nebigiisa sala allahu calayhi wasalama ay jecel yihiin oo ilaahay uu u furay futuuxaad iyo mucjisooyin aan la soo koobi karinin nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa culimmadu ay isku khilaafeen taariikhda ama siirada mucjisadani sanadka ay dhacday waxay culimmadu u badan yihiin in mucjisadani ay dhacday qabla alhijra ila almadiinati almunawara bisana intuusan nabigu sala allahu calayhi wasalama magaalada madiine uusan u haajirin hal sano ka hor bishii rajab bishan hadda aanu ku jirno ee rajab 27 ayaa mucjisadani dhacday bishan rajab hadda aanu ku jirno oo kale ayaa mucjisadu ay dhacday intuusan nabigu aadin sala allahu calayhi wasalam magaalada madiina intuusan u haajirin hal sano ka hor ayaa mucjisadani dhacday mucjisatu alisraa waalmicraaj mucjisadaas markaa alisraa waalmicraaj waxaa ku dhex jira cilmi aada u ballaaran waxaa ku dhex jira xikmado qaali ah waxaa ku dhex jira casharo aan la soo koobi karin waxaa ku dhex jira cibrooyin iyo waxyaalo qofka muuminka ah uu ku cibro qaadan karo waxaa ku dhex jira waxyaalo siyaadinaya qofka iimaankiisa qalbigiisana dahiraya oo nadiifinaya oo culuum fara badan ah ayay mucjisadu ay ka koobantay yacni inay mucjiso tahay oo keliya ma ahane waxaa ku dhex jira xikmado iyo cibrado waaweyn oo qofka bini aadamka adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wax weyn ku taraya hadduu sii fiiriyo oo uu ku sii fekero cilmiga ku dhex jira mucjisatu alisraa waalmicraaj nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh inti markii la dheelmin rabay oo la wadi rabay waxaa loo soo diray malaa'ig ilaahay malaa'igtiisa ka mida waxaa la dilaaciyey nabiga sala allahu calayhi wasalam sadrahu shariif xabadkiisii ama qalbigiisii ayaa la dilaaciyey nabiga sala allahu calayhi wasalam xabadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam markii la dilaaciyey waxaa laga buuxiyey xikmad iyo culuum ayaa laga buuxiyey isla markiina nabiga sala allahu calayhi wasalam xabadkiisii sidii markii hore uu ahaa daqiiqad ka hor siduu ahaa ayaa ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala yacni qof xabadka laga dilaacinayo oo isbitaal aan la seexinaynin oo qalliin aan la marsiinaynin oo intaasoo bilood aan daawo lagu wadaynin oo isla markiiba sidiisii ku soo laabtay waa mucjiso weyn wey yacni bilowga qisadan ayaa waxaad arki inay tahay waxyaalo ka baxsan yacni caqliga iyo garaadka bini aadamka oo dhammaanteedba ah mucjiso socota si nabiga sala allahu calayhi wasalam loogu diyaariyo waxyaalaha waaweyn oo uu arki doono nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa loo keenay daabad magaceeda la yidhaaho alburaaq daabad la yidhaaho buraaqo ayaa lagu keenay maka almukarama khusuusan almasjid alxaraam daabadaas waxaa u keenay jibriil ayaa nabiga u keenay sala allahu calayhi wasalam
xadiiska bukhaari iyo muslim iyo kayrkiisba way wariyeen nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalo dhowr ilbiriqsi ah ayuu nebigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku tegey dhulkan reer falastiin masjidka ku yaalla ee la yidhaaho almasjid اlaqsa almasjid اlaqsa ayuu ku tegey nebigu salى اllahu calayhi wasalam ilbiriqsiyo nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh intuu sida intaas soo marayey oo dheelmintu ay socotay wuxuu arkay nebigu salى اllahu calayhi wasalam waxyaalo gaybiyaad ah ayaa la soo tusay waxaa la soo tusay muuqaallo ummaddiisa ka mid ah ee qubuurtooda lagu cadaabayo dad qubuurtooda lagu cadaabayo oo loo haysto dembiyo ay galeen ayaa la tusay nebigu salى اllahu calayhi wasalam intii dheelmintu ay socotay waxaa ka mid ahaa waxyaalaha la tusay dad qubuurtooda loogu nicmaynayo oo barwaaqo iyo naciim qubuurtooda ku haysta dadaalkii adduunka ay sameeyeen iyo siday isku ilaalin jireen markay dunida ay joogeen oo cibaadada rabbi ay ugu dadaali jireen xumaatada iyo dembigana ay isaga ilaalin jireen waxaa ka mid ahaa waxyaalaha nebigeena salى اllahu calayhi wasalam la soo tusay waxaa ka mid ahaa laqad ra'aa aqwaama tuqradu shifaahuhum wa alsinatuhum bimaqaarida min xadiid nebiga salى اllahu calayh wasalam waxa uu soo arkay habeenka qolo carabadoodii iyo faruuryahoodaba la jarjarayo oo maqasyo waaweyn oo naar ah lagu jarayo markii la jaraba isla markiiba haddana sidoodiiyaa laga soo dhigay afkii iyo carabkii iyo faruuryihii haddana sidiiyaa loo jari saasaa lagu wadi aakhira markii la soo saaro qiyaamaha la gaarana waa cadaab intaa ka sii weyn nebiga salى اllahu calayhi wasalam jibriil oo rixladiisa iyo safarkiisa ku wehliyey ayuu weydiiyey oo uu yidhi qoladani maxay sameeyeen maxay yihiin kuwan qubuurta sidan loogu cadaabay jibriil wuxuu ku yidhi haaulaa khudabaa'u اlfitna min ummatik kuwani waa kuwa fitnada kiciya oo intay khudbeeyaan khudbadooda fitno ku dhaliya ama waxay isku dirayaan qabaa'il heshiis ah ama waxay jeedinayaan khudbo ay shacabka ku kicinayaan oo dad markaa yacni waddan nabadgelya ay ka jirto ay doonayaan inay fitno ku kiciyaan waa dad hal abuur leh bulshaduna ay dhegaysanayso ereyadooda kelimadooduna miisaan ay leedahay dadkana saamayn ku leh isla markiina dhinaca xun dadkii ku kicinay oo dhinaca wanaagsan aan ummaddii aan u kicinaynin laakiin dhinaca xun ummadda u kicinayo khudbooyinka fitnada jeedinayo sidaasaa loogu cadaabaa uu yidhi nebigu salى اllahu calayhi wasalam qubuurtooda loogu ciqaaba idan markaa waa masalo u baahan in mar walbaba la dul istaago maxaa yeelay qof waliba ee muslim ah waxa uu ku hadlay iyo waxa uu sheegayo dhammaan waa wax miisaankiisa iyo diiwaankiisa u geli doona waa wax aan dayacmi doonin oo lagula xisaabtami doono ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka muuminka ah ama qofka bini aadamka ah hal eray kuma hadlo ilaa malagaa dhinaciisa taagan oo diiwaan gelinayo qoray idan marka qofku erayada xunxun hadduu ku hadlo adeegsado sidaasaa qabrigiisa markuu galo loogu ciqaabi sida nabigeenu uu soo arkay salى اllahu calayhi wasalam habeenkii la dheelminayo nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu arkay habeenkaa la dheelminayey ra'aa aqwaaman turdaku ru'uusuhum wuxuu arkay dad qabrigoodii lagu ciqaabayo madaxa laga burburinayo oo lala dhacayo dhagax waaweyn iyo burar waaweyn lala dhacayo oo madaxoodii ilaa maskaxdu ay ka daadato la garaacayo isla markii haddana madaxoodii sidii loo soo celinayo haddana garaacii lagu wadayo ilaa qiyaami saaca nabiga jibriilu su-aalay salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi kuwanina maxay ahaayeen jibriil wuxuu ku yidhi haaulaa aladiina tatahaaqalu ru'uusuhum can الsalaaة kuwani waa kuwa salaada ka hurdow oo ka doortay naftooda waxay amarto ayay ka doorteen amarkii ilaahay maxaa yeele naftaaduna waxbay ku amri ilaahayna waxbuu ku amri
laba amar ayaa mar walbaba yacni dhinacaaga yaalla laba amar ayaa dhinacaaga yaalla naftaaduna waxbay ku amri ilaahayna waxbuu ku amri ilaahayna wuxuu fiirin labada amar midka aad qaadatay iyadoo qabowgii jiro ama aad caajisan tahay ama aad daallan tahay ayaa waxaa dhacaya amarkii ahaa xayi cala asalaax xayi cala alfalaax oo mu'adinkuu leey war salaadda u kaalay naftaadu isla markaa amaray ku siin waxaa laga yaabaa inay ku tidhaaho ha bixin xilligan ama hurdadaada iska sii wado caawa caajisaa ku haye salaadda subxiga ma aadi kartid ma tukan kartid iska wado xoogaa iska huri haddaad amarkaaga naftaada dooran jirtay cadaabkaasaa kuu yaalla qabriga amarka naftaada haddaad dooran jirtay cadaabkaasa adigana kaa horeeya adduunyaduna waa daqiiqado kooban daqiiqaduhuna way isgurayaan mar walbaba waa sii socdaan waa kaasii dhammaanaya daqiiqadihii aad ku lahayd adduunyada inta badan waad soo cuntay inta badan waad soo cuntay waxa yarna waxa harana waa waxaad u yar fursadda bini aadamka adduunka laga siiyey aaday u yar tahay intaa yarta ah waa inuu qofku ka fekero meesha uu ku bixin lahaa idan marka nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay dadka sidaa qubuurtooda lagu ciqaabayo inay yihiin dadkii amarka nafta iyo amarka ilaahay qaadan jiray amarka naftooda qaadan jiray oo salaadda ka caajisi jira oo madaxoodu salaadda uu ka cuslaan jiray idan marka waxaa loo baahan yahay qof waliba oo muslim ah inuu ku baraarugsanaado masaladaasoo laba amar inay ag yaallaan uu ogaado amarka rabbina mar walbaba uu qaato oo uu rajaxo waxaa ka mid ahaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalaha uu soo arkay waxaan arkay yuri nabigu sala allahu calayh wasalam qolo calooshoodu aada u malaynayso guri oo kale calooshooda la weyneeyo intaa laga dhigay waxaa caloosha ku dhex jira abeesooyinaa ku dhex jira caloosha gudaheeda ka cunaya qabrigiina waa lagu soo nooleeyey abeesooyina calooshii ka dhex cunaya markaasaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi kuwanina maxay ahaayeen jibriilow nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa-ulaa aladiina ya'kuluuna aribaa kuwanina waa kuwii ribada cuni jiray kuwii ribada cuni jiray weeye kuwa sidan loo ciqaabayo oo sidan loo cadaabayo ribaduna maantay adduunka waa waxaa halaagay waxyaalaha dunida halaagay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah ribada ha noqoto riba alfadli ama ha noqoto riba nasiica labadeeda qayboodba waa waxaa hadda dunida halaagay walidaalika qofku markuu gelayo ziyaado dhaqaalaha uu raadinayo dhaqaalaha ziyaadada uu ku raadinayo duruq fara badan iyo waddooyin fara badan iyo habab iyo asaaliib kala duwan oo fara badan ayaa shareecadu bannaysay ood ku raadiso ha ku raadinin dariiq xaaraam ah ha ku raadinin dariiq xaaraama dhaqaalahaaga inaad ku kobciso bal dhaqaalahagaad kobcin laakiin xaqiiqada adigaa isgubaya adigaa ishalaagaya adigaa iskhasaarinaya maxaa yeelay ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha cadaabulqabriga keena kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay bangiyada qaarkooday ku jirtaa ribadii bunuugta qaarkooda isticmaalay ganacsiga qaybihiisa kale qaybo ka mid a ayay ku jirtaa ribadii waa in mar walbaba iyadoo xiilaysanaa bini aadamkii samaynaya ribadii waa la xiileeyey iyadoo xiilaysan laakiin xaqiiqada markaad fiirisid ribadiiyo sax oo meeshan taagan ah ayaa bangiyada qaarkood ay isticmaalaya sidaa awgeed waa in laga foojignaado oo laga digtoonaado oo qofku kasab xalaala iyo wax xalaala uu calooshiisa geliyo oo uu labisto haddii kale waxaa u yaalla suurada iyo noocaas cuquubada ah ee nebigeenna uu ka hadlay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalaha nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh habeenka uu arkay waxaa ka mid ahaa wuxuu arkay raa'ixa tayiba caraf iyo udug yacni saameeyey nebigeenni sala allahu calayhi wasalam qisadaas raa'ixada inuu soo arkay ibnu xibbaan kitaabkiisa saxiixa uu ku wariyey saxiix ibnu xibbaan imaam axmedna wuxuu ku wariyey kitaabkiisa musnadka ah waa qiso isnaadkeedu uu saxiix yahay udug ayaa qariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo hareeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi jibriilow udugganina muxuu yahay udugganna saameeyey oo meeshan markaanu maraynay muxuu ahaa jibriil wuxuu yidhi haadihi raa'ixatu maashidati ibnati fircawn
وقبر قال كي وينايو فرعون لديه جري قبر أشقين جرتي قبر يدي أيان أجمر إنه أذوق عرفته أي كسو كريس فرعون قبر أشقين جرتو مؤمنات هيدا أهل العبادة أهل النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ومحي قصة ذي واحد كوناس وحيري جبريل وحي قريسي كشقين جرت أيضا مالين مالناها كمدا فرعون قبر ودالي وشان لينيس أيا وحا كدعي شان ليه أيا دولك وكدعي مركزي تري بسم الله هيتي شان ليه مركز سوق قادنيسي أي قبدي وحي تري بسم الله قبدي أيو شان لينيسي فرعون ودالي أيا وحي تري ومحي تهي مقعن إله أتشيغيسو ما أبيه يدولا جيدايت إلا أبيه دو فرعونها إساقا إله نما شاكتي إله نما يا رب نما إساقا شاكتي فرعون قفكي إساقا أنكو شاكين إله يا ربك حق عابدها ينو عقابي جر قبضنا سيدا ويوكتا وقوري كشاقين يسو مؤمنة دا وحي تري قبضي مؤمنة دا هاي adiga rabbigaaga iyo aniga rabbiga iyo fircoonka aad sheegayso waxa rabbi noo ah dhamaanteen cirkan iyo dhulkan allihii taagay allaha xaqa ah ayaan ula jeedaa bismillaah markaan leey gabadhii way baxday yarta ahayd aabaheedo fircoonahay u sheegtay waxay tiri gabadhan guriga ka shaqaynaysa ilaaha aan adiga ahayn ayayba caabudaan fircoon waa yimid wuxuu yidhi xaq miya waxa lagaa sheegayo maruna ومن ربي واحد أمسنتها أنيقا أنا هاي وحي تري أنيقا يا ضمان مخلوقات كبا وحا ربي نوعه اللي عركن يدول كن تاقي واحد نتاهي الضون ضعيفة مسكينة فرعون وحناقي وحويري هلا سو كركري سريد يالا كركري سريد يالا كركري فوستو وين كجرت سريد مركي لا كركري ayuu wuxuu yidhi ka laabo fikradaada ama saliidan aan adiga iyo carruurta aad dhashayba aan ku ridi doonaa ayadoona dhowr carruuraa guriga u joogay gabadha shaqaalaha ee muslimadda ah waxay tidhi ka laaban maayo carruurteedii ayuu qaaday miduu u qaaday wuxuu ku riday saliiddii karkaraysa gabadhiiyo fiirinaysa waa hooyadiiyo fiirinaysa carruurteedii ayaa mid carruurteedii saliiddii fircawn ugu riday waxay tidhi hal arrin ayaan ku weydiisanay tiri fircawno maadaama sidan aad noo ciqaabayso aadanna cafinayn hal arrin haddaad noo samayn karto noo samayn anigii carruurtayda wuxuu yidhi maxay tahay arrintaad iga codsanayso waxaan kaa codsanay tiri markii saliiddan aan ku gubanno oo lafaheennu ay soo haraan aniga iyo carruurteennu hal qabri nagu aasay tiri intaas bis ii samey ballan wayweer intaa waan kuu samay intaasaan kuugu naxariisanayo markii aad gubataan lafaha inaan soo aruuriyo adiga carruurtaada oo aanan idin kala geynin dhowr qabri aan idinku kala aasin oo hal qabri aan idinku aaso ballan wayweer fircawn marka nabigeena sala allahu calayhi wasalam jibriil wuxuu ku yidhi caraftan aanu arkayno ilaahay wuxuu ku abaalmariyey qabrigoodii in ilaahay ugu nicmaynayo oo janno ilaahay qubuurtoodii uga dhigay maashidatu fircawn iyo awlaaddeedii ilaa caraftan aanu dareemayno waa carafta qabrigeeda ka socota uu yidhi jibriil gabadhii sidaasaa ilaahay ku abaalmariyey weliba kitaabkan musnad imaam axmed ibnu xambal riwaayo wuxuu ku siyaadiyey markii hooyada kalkeedii la gaaray oo saliidda lagu ridayey wiil yaray xambaarsanayd markaasi waxay doonaysay inay yacni gadaal u soo degto oo ay ka laabato wiilkii aa ilaahay ka hadashiyey markaasu wuxuu yidhi yaa umaahu uhbutii fa innaki cala alxaq lacadaabu alaakhirati lacadaabu اddunya ashad ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabka adduunyada ka fudud cadaabka aakhire hooyo iska sabar oo saliidda gal lidaalika wiilkaas yar waxaa lagu tiriyaa dadka iyagoo yar oo umushii lagula jiro ayagoo hadlay saddexda ama afartan ruux oo taariikhda soo martay oo iyagoo umushii lagula jiro hadashay ayaa wiilkaas yar lagu xisaabaa oo lagu tiriyaa waa wiilkaa yaroo gabadha guriga fircoon ka shaqaynaysay ilaahay uu ka hadashiiyey oo hooyadii dhiiri gelinayey hooyadii ku dhiiri gelinayay inay adkaysato xaqa ay ku sugnaato lidaalika cibrada qisadan ku jirtaahi waxay tahay qofka muuminkaa inuu diintiisa ku adkaysto mahmaa duruufo kasta ay soo wajahaan
duruufo kasta ay ku soo wajahaa towxiidkaaga diintaada iimaankaaga ha iibsan waad arkaysaa gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey naciimka jannada in ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigeedii uga dhigay in udugaas iyo caraftaa ka soo karaysa qabrigeeda ilaa nebigeena sala allahu calayhi wasalam ee malaa'igtiisiiba ay dareemayeen waxaasna waxay ku gaartay adkaysi iyo ku sugnaashada diinteeda ay ku sugnaanaysay oo ay ku dheganayd iyadoo duruufahaas xanuunka badan ay soo mareen gabadha maantana waxaan arkaynaa biabsad min addunya biabsad min acraadi dunya waxyaalaha ugu liita shay taafih ah taafih wa xaqiir min addunya wax aada u liita oo adduunyo ka mid ah ayaa soomaalideenni qayb ka mid ah diintoodii ay ku iibsadeen maxaad u malayn lahayd haddii yacni la dhihi laha waa laydin ciqaabi ama diintiina ka laabta wax yaroon qiimo lahayn oo wax caloosha lagu shubto iyo dollar iyo adduunyo wax la mid a ayaa diintii dadku ku iibsadeen maanta dadka maanta tahriibay oo waddamadaa shisheeye maanta u tahriibay oo dhahaya yacni ama moorto ama maalto dhallinyarada hadda halhays ka dhigatay yaa inaan moorto noqdoon dhinto ama maalto inaan soo taabto dadka maanta dhahaya maxay raadinayaan diin uma socdaan waxay raadinayaan waxa weeye waa wax calooshooda uun ay ku shubtaan waana dad u nugul maantay haddii kiniisaddu wax yar ay siiso oo dhaqaalo ah in diintooda dhan ay ka baxayaan dad aad u nugul dad badanna waa la arkayba oo sidaa sameeyey dad badanoo sidaa sameeyey waad aragteen b b c da waad ka maqasheen gabar qaxootiyaha yacni joogtay oo $500 diinteedii ku iibsatay gabar Soomaali ah waad ka maqasheen b b c da $500 kaniisaddu siisay b b c da laga soo daayay waraysigeedii b b c da waraysatay $500 islaamka uga baxday oo diinteedii siisay waa wax laga dhimanayo waa waxaan ku raacayno waa wax masquul la geynayo u fiirso waxa iimaankii iyo towxiidkii iyo diintii lagu iibsanay idan marka qisadan qisatu maashidati ibnati fircawn gabadhan maashidati ibnati fircawn waxay duruus iyo cibro iyo xikmad ay siineen qof walba ee muslim ah duruuf kastee soo wajahda inuu diintiisa ku adkaysto diintiisa inuu ku adkaysto si ilaahay subxaanahu wa tacaala futuuxaadka ugu furo liannahu waxa weeye wax walba haddii aad ka tagtid badiilkiisa ayaad heli laakiin laysa man taraka allaaha lahu ciwadun walaa badiil qofkii ilaahay ka taga wax ilaahay kuu bedeli karaahi ma jiraan saaxiibkaagu hadduu ku gooyo saaxiib kalaad heli ood ku bedel qaadatid qofkani lacagta hadduu kuu diido lacagtaa wax ka khayr badana laga yaabaa ilaahay inuu ku siiyo zawjada ee xaaskaaga haddaad isku dhacdaan xaas kale laga yaabaa inaad heshid oo iyadii ka wanaagsan iyaduna nin adiga kaa wanaagsan ay hesho laakiin ilaahay badiil ma laha mar haddaad ilaahay ka tagtid wax ilaahay booskiisa kuu buuxi karaahi ma jiraan oo gaari kara idan marka walbaba diintu waa ra-sulmaalkeenna aanu ku mitidno wax noo bedeli karo booska diinta noo buuxin karaahi ma jiraan wax walba haddaan weyno waa laga kabsan karaa laakiin diin la waayey lagama kabsado waxaan lagu bedel qaadan karaahina ma jiraan sidaas awgeed nabigeena salى اllahu waslama wabaaraka calayh rixladiisii safarkiisii israha wuxuu ku gaaray almasjid اlaqصى ayuu ku gaaray nebiga salى اllahu عalayh wasalam masaajidkaas alaqصى ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala karaameyn uu nabiga karaamaynayo salى اllahu عalayh wasalam ilaahay wuxuu ugu soo kulmiyey ugu soo aruuriyey ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nabiga salى اllahu عalayh wasalam masjidkaasee 2 ragca uu nabigu salى اllahu عalayh wasalama imaam ugu noqday ambiyadii iyo rusushii isaga ka horreysay waxyaalaha mucjizooyinka ay ka mid yihiin leanna waxaa weeye ambiyada iyo rusushu horay ayay u dhinteen isla markaana habeenkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isugu keenay almasjid اlaqصى markaas axaadiista saxiixa waxay noo sheegi in 2 ragca halkaa uu imaam ugu noqday nebigu salى اllahu عalayh wasalam ambiyadii iyo rusushii taasoo lagu muujinayo oo lagu tusaalaynayo nebiga salى اllahu عalayh wasalam inuu yahay akram wa khayru rusul rususha kuwa ugu khayrka badan qofka ugu khayrka badan
ugu karaamada badan ee ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu calayhi wasalam dheelminta loo dheelmiyey labada masjid masjidulxaraam laga soo dheelmiyey lana keenay masjidkan ku yaalla dhulkan filistiin almasjid alaqsa waxay ku tusinee ahmiyadda masaajiddu ay leeyihiin masaajiddu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa sala allahu calayhi wasalam markuu karaameynayey ilaahay wuxuu ku karaameeyey inuu masjid ka soo qaaday masaajid kalena uu geeyey almasjid alaqsa waxay kale qisadanayna tusin ahmiyadda taariikhda uu ku leeyahay almasjid alaqsa taariikhda islaamka maxaa yeele waa masaajidkii nabigana loo dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam ambiyada iyo rususha dhanna uu nabigu ku tujiyey 2 ragcood maantana waad ogsoon tihiin masaajidka xaaladdiisa waxa maamulkiisa iyo siyaasaddiisa haga oo gacanta ku haya nimanka yahuudda ah oo masaajidkii nabiga loo dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam waa dacfiga muslimiinta iyo dhaawaca soo gaaray oo ku dhacayo ayagaa gelaya ihaanaysanaya khamro ku cabbaya dadkii maaragtaa inay ku tukadaan u diidaya oo dhibaatooyin ku haya waa yahuudiyow waa meeshii loo dheelmiyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam nasأl اllaha tacaalى an yafuka almasjida min aydi اlyahuud ilahay waxaan weydiisanaynaa masaajidka in ilaahay xoreeyo masaajidkii nabiga loo dheelmiyey salى الlahu عalيه wasalam gacmaha yahuudda in ilaahay ka xoreeyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa muslimiintana dacfiga ku dhex jira iyo maaragtaa qalbigooda daciiftinimada ku jira iyo dulliga oo diintii ay ka fogaadeen in ilaahay awooddii muslimiinta iyo sharaftii muslimiinta ilaahay uu dib u soo celiyo ilaa masjidka ay ka xoreeyaan ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh halkaa markuu ugu dhammaaday safarkii israha waxaa bilowday safarkii cirka oo loo yaqaan almicraaj micraajkii haddana halkaas ka bilowday micraajka nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxaa saaxiib kula ahaa ama rafiiq kula ahaayo ku wehliyey jibriil way tageen nabiga salى الlahu عalيه wasalam iyo jibriil waxay u tageen samaau dunya waa cirkan ugu soo sokeeya nabiga salى الlahu عalيhi wasalam samaau dunya wuxuu ku arkay nebiyullaahi aadam calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi aadam waa mucjizo waa abulbashar waa bini aadamkan dunida ku nool oo dhan aabbahoodii mar hor uu geeriyooday isla markaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiis iyo ilaahay fadligiisa habeenkaa micraajku dhacayay jasadkiisii iyo suuraddiisii iyo muuqaalkiisii isagoo hadlaya nebi aadam ayaa samada loo fariisiiyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam karaamayn ilaahay lagu karaamaynayo nabigana salى الlahu عalيه wasalam waa nebi hore u dhintay haddana habeenkaa samada ilaahay uu keenay samaau dunya nebiyullaahi aadam calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi aadam calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu arkay nabigeena salى الlahu عalيhi wasalam dhinaca midigta hadduu fiiriyo nebiyullaahi aadam inuu farxayo oo uu qoslayo dhinaca bidixda hadduu fiiriyo nebiyullaahi aadamna uu murugoonayo ooyay nebiga salى الlahu عalيhi wasalam wuxuu weydiiyey jibriil oo uu ku yidhi maxay tahay nebiyullaahi aadam qisadiis markuu dhinaca midigta fiiriyana wuu farxay dhinaca bidixda markuu fiiriyana waa murugoonahayaa waa ooyahay jibriil wuxuu yidhi dhinaca midigta waxaa ka xiga waxaa loo furay oo ilaahay daaha uga qaaday intii isaga faraciisa ahaa iyo carruurtiisa ahaa iyo bini aadamka ahaa oo qabrigooda loogu nicmaynayo ayuu midigta ka daawanaya markaasuu ku farxaa dadkii bini aadamka ahaa oo ahlu salaadka ahaa oo adduunyada markay joogeen xumaatada iyo dunuubta iyo macaasida iska ilaaliyey oo ilaahay baariyaalka u ahaa oo qubuurtoodii loogu nicmaynayo ayaa ilaahay tusahaya markaasuu farxaya dhinaca bidixda markuu fiiriyana waxaa loo furahaya uu arkahaya dadkii qubuurta lagu ciqaabay oo awlaaddiisii faraciisii ahaa markaasuu markuu naxayo murugoonayo nebiyullaahi aadam calayhi الsalaaةu wasalaam oo waxyaalaha cajaa'ibta leh oo nebigu salى الlahu عalيhi wasalam uu la kulmay micraajkii samaau dunya samada labaad ayaa haddana nebiga la geeyey salى الlahu عalيhi wasalam wuxuu ku soo arkay oo uu kula kulmay nebiyullaahi yaxya calayhi الsalaaةu wasalaam iyo nebiyullaahi ciisa calayhi الsalaaةu wasalaam way salaameen way soo dhoweeyeen waxyaalaha cajiibkana waxaa ka mid ah nebiga salى الlahu عalيhi wasalam sidii wafdi ayaa loo gelbinahay sidii wafdi oo kale loo maamuusay 7 samo kasta waxaa loo fariisiyey nebi marxabaynay soo dhoweynay oo nebiga salى الlahu عalيhi wasalam ku farxaya
rixladiisa iyo safarkan habeenkan uu ku yimid samada uu ku yimid nabigu sala allahu calayh wasalam intaasoo dhan waa ilaahay martiqaadkiisii uu nabiga ku martiqaadayo sala allahu calayh wasalam maadaama sanadkaas uu cadaadis iyo duruufo adag uu gaaladii kala soo kulmay nabigu sala allahu calayh wasalam qalbigiisaa la dejinayay maqaamkiisaa la tusayey nabiga sala allahu calayh wasalam inta uu maqaam iyo maamuus uu ku leeyahay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala samadii saddexaad ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam la geeyey wuxuu kula kulmay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi yuusuf oo isaguna aada u soo dhoweeyey nabigana sala allahu calayh wasalam samadii afaraad ayuu nabigu sala allahu calayh wasalam kula kulmay nebiyullaahi idriis calayhi salaatu wasalaam samadii shanaad ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam uu kula kulmay nebiyullaahi haaruun ayuu kula kulmay nabigu sala allahu calayh wasalam samadii lixaad nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu kula kulmay sala allahu calayh wasalam nebiyullaahi muuse markuu sii dhaafayo oo samadii toddobaad uu nabigu aadayo sala allahu calayh wasalam nebiyullaahi muuse uu iska ooyey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu weydiiyey nebiyullaahi muuse waxa uu la ooyayo wuxuu yidhi nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam waxaa iga ooyeysiinaya oo la yaabay intaasoo sanaan reer banu israa'iil ku dhex jiray diinta aan ku faafinayey inta badanna reer banu israa'iil diintii way iga diideen waxa jannada ka gelayaana waa dad aada u yar dadkii aniga la ii soo diray laakiin nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebi aniga iga dembeeyey ah oo wakhtigiisu iga yaraa intuu diinta faafinayey ummaddiisa waxaa jannada ka gelaya wax ka badan aniga ummaddayda arrintaasaan la murugoodu yidhi oon la ooyey oon ku xasuustay aragtida nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam samadii toddobaad ayaa la gaarsiiyey wuxuu kula kulmay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam samadii toddobaad nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku arkay geedkan la yidhaaho sidratulmuntaha geed la yidhaaho oo aada u qurux badan ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu ku arkay geedkaa sidratulmuntaha nabigana sala allahu calayhi wasalam markuu soo gaaray caleemihiisii isbeddelaa ilaahay ku sameeyey waxaa daboolay heybad iyo jalaal iyo qurux weligiis geedku uusan yeelanin sidratulmuntaha nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa la sii waday ilaa nabigu sala allahu calayhi wasalama xataa samica sariifa alaqlaam min allawxi almaxfuud ilaa nabigu sala allahu calayh wasalam looxu maxfuudka qalinka lagu qorayo maqaadiirta qalaftiisa iyo shanqartiisa uu ka maqlay nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaa waxaa la gaarsiiyey maqaam jibriil uu ka haray nabiga sala allahu calayhi wasalam oo jibriil uu yidhi halkan anigu ma dhaafi karo amar waxaa laygu siiyey in halkan aanan dhaafin haddii hal taako halkan aan dhaafana waan gubanahayaahuu yidhi malaggaasi jibriil adiga unbaa soconayuu yidhi wixii ka dambeeya adiga unbaa soconayuu yidhi jibriil nabiga uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu geeyey nabiga sala allahu calayh wasalam sidratulmuntaha meel ka sii sarraysa oo waxa meeshaa ka dhacay ilaahay mooye cid kale oo oge aysan jirin maadaama jibriil oo nabiga la socday sala allahu calayhi wasalam uu ka haray nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh habeenkaa waxyaalaha ilaahay ku karaameeyey waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu wa tacaala jala jalaaluhu uu habeenkaa uu soo arkay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh karaamada noocaas oo kalena wax dunida ku arkay ilaahay waxaa ka jira nabigeena moxameda bis sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalaha ilaahay ku karaameeyey ka mid tahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam amaa aakhiro markii la tago dadka mu'miniinta ah ee ahluljannaha ah ilaahay wuu ku karaamayn doonaa inay dhammaantood ahluljannuhu ilaahay ay arkaan amaa dunida waxay suurtagal ilaahay uu uga dhigay nabigeena moxameda bis sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu soo laabtay markuu soo laabtay oo nebiyullaahi muuse uu soo maray waxaa nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay uu ku soo farad yeelay 50 salaadood ayaa ilaahay yidhi ummaddaada gaarsii 50kaa salaadood habeen kasta iyo maalin walba waajib ayay ku tahay ha tukadaan 50kii salaadood isagoo wada nabigu sala allahu calayh wasalam ayuu wuxuu soo maray nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaa ummaddaada lagugu soo dhiibay oo hadiye ah oo waajib ah wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam 50 salaadood ayaa ummadda la igu soo dhiibo waajib looga dhigay
نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وحيري هير بنو إسرائيل وأمد هذا كأود بدنا وككرت بدنا أي أودي ويوري صلاة هركله سداس أود ربي قاعد دب أقول لابو صلاة هكسر فضوضة أمد هذا وحيالها عجيب كانوا حكم ذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحل هرق ريودي أردنتي هبينك إلهي سبحانه وتعالى صمد اللحاد أي إلهي كاني نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحبضنا وحلتها لي نبينا صلى الله عليه وسلم إنه كنتن كصلاة إلهي ويديستو إن إلهي أمده وكفوذي إلهي وكفوذي نبي صلى الله عليه وسلم وكنتن كصلاة سيدو الله لابنا نبي صلى الله عليه وسلم وحلق سور ريبي شن صلاة وشنتن صلاة هذا أن تكرين لكن إلهي سبحانه وتعالى وحيري وشن صلاة أو دقمة كنتن كصلاة وإلهي الرحمة ديس سبحانه وتعالى إلهي الرحمة ديس هو شن صلاة لكن شنتا صلاة waxay u dhigmaan ajirkii konton salaadood adigoo tukaday konton salaadood adigoo tukaday oo kale ayay u dhigmaan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ayuu soo degay waxa la keenay meeshii laga dheelmiyay al-masjidul haram Makka ayuu nabigu ku soo laabtay sallallahu alayhi wasallam waagu markuu bariyay oo subaxii la gaaray ayuu isugu yeeray dadkii nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuuna warbixin nabigu ka siiyay xalay wixii dhacay iyo cajaa'ibtii uu soo arkay nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu dadkii isugu yeeray oo uga sheekay nabigu sallallahu alayhi wasallam gaaladii way diideen mid sacbiya iyo mid ku jeesjeesa ayay noqdeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba sayyidina Abu Bakar ayaa nin gaal uu gurigiisa intay ugu yimid wuxuu yiri saaxiibkaaga wuxuu sheegay ma taqaanaahu wuxuu yiri waxaan laysoo marsiiyay 7 sano iyo Falastiin iyo Qudus aan tagay halkana waan idin la seexday xalay oo ma kan idin la seexday bal waxa uu sheegay wax bini aadamka aysan rumaysan karin ayuu saaxiibka noo sheegay saak sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wuxuu yiri inni la usaddiquhu bi ab'ad min hada aniga wax intaan ka fog oo ka daran ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u rumeeyahay waxaan u rumeeyahay isagoo ila fadhiya oo uu leeyahay Jibriil ay yimid oo Quraan igu dul akhrinaya aniguna Jibriil aanan arkaynin Quraankana aanan maqlaynin ayaan u rumayn jiray tanna waa u rumaynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo amiinkii uu ilaahay aaminay uu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waan u rumayn marka gaaladii waxay yiraahdeen warbixin waxaad naga siisaa ilaa weliga waan ku ognahay Falastiin ma tagin bal masaajidka Qudus ee meesha ku yaala inta albaab uu leeyahay iyo inta daaqadood uu leeyahay iyo albaabadiisu jihada ay u jeedaan inay galbeed u jeedaan bari inay u jeedaan koonfur inay u jeedaan bal masaajidka tilmaanka bixi nabiga sallallahu alayhi wasallam xilli habeen masjidka galay laba ragcoo ku tukaday wuna ka tagay mana tirin albaabadiisa iyo daaqadihiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu murugooday isla markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hortiisa soo dhigay masjidkii muuqaalkiisii meeshaasuu nabigu ka tilmaamay sallallahu alayhi wasallam masjidkii Qudus intaasoo albaab uu leeyahay intaasoo daaqadood uu leeyahay albaabadaasi halkaasi u jeedaan albaabkaasi daaqadaasi u jeedaa markaasi gaaladii meeshii la rabay inay rumeeyaan waxay yidhaahdeen waa sixir kale sixiroola way yidhaahdeen bal weligii ma tegin masjidka iyo dhulka reer Falastiin weligii ma tegin xalana halkan uu maaragtay seexday uu leeyahay inaguna bil iyo 2 bilood aan u sii lugaynaa masjidka markaan u safrayno oo awrta aan ku safrayno 2 bilood iyo bil ayaan u sii lugaynaa waa sixir ay yiraahdeen waxan sixir weeye yaani masaajidkiina sida uu sheegayna way tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam muddada uu sheegana lagu ma tagi karo marka waa sixirooday nabigu ku yiraahday sallallahu alayhi wasallam qofka hadduu qalbiga ka xanuunsan yahay oo qalbiga jeermis uu uga jiro waxa weeye wax walba loo sheego ma qancin karaan oo cudurka ay jeermiska u diidaya inuu xaqi uu rumeeyo lidaalika marka mucjizadani sidaas waxay u tahay mucjizo taariikhi ah oo aad u qiimo badan oo casharo iyo duruus badan ay noogu sugan yihiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala
كوا إلهي سبحانه وتعالى وقبرك ونعميه إن إلهي نقدر عذاب القبر إلهي ونجح حفظ سبحانه وتعالى حسن الخاتم إلهي ونصيه هذا وبالله التوفيق الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا